komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay si rasmi ah u soo gabagabeeyay diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolka Awdal oo muddo bilaba ka socotay deegaanada gobolka Awdal. Mas'uuliyiin isugu jira afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdicasiis Xirsi Warsame, barasaabada gobolada Awdal iyo Shalel. Gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Awdal ayaa sheegay inay xidhantay caawa barbilow waxa halkaasi ka hadlay taliyaha howlgelinta gobolka Awdal iyo barasaabka gobolka Awdal. waxaynu ognahay in dhammaan goobihii ay ka socotay diiwaangelintu si nabadgelyo ay ku soo dhamaadeen. qaybtii horeysay oo ka kooban 4 goobood ba hadda noo soo hoytay. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan howlwadeenadii ka howlgalay goobahaas oo runtii xilkasnimo dheeraad muujiyay. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ciidamadii la shaqeynayay. waxaan ugu mahadnaqaynaa komishanka gobolka Faarax iyo tiimkiisa Cabdicasiis oo isla mar walba gurmadka la daba taagnaa. dhammaantiin waxaanu idin leenahay miisaanka xasanaadka Allah idin saaro effortka ay geliseen in diiwaangelintaasi si wanaagsan lagu soo dhamaato. sanaaduuqdii gobolka Awdal waxay ku soo dhamaatay nabadgelyo iyo wanaag bay ku soo dhamaatay. waxaan si sharaf leh boqolkiiba ugu mahadnaqayaa ciidankii gobolka aanu raacinay oo si nabadgelyo ah oo boqolkiiba wanaagsan u nabad keenay. xoog baan ugu mahadnaqaynaa isaga tiimkii ka socday la socdayba. Gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sadci ayaa isna hadalka ka daba qaatay. barnaamijkii aynu bilownay ee howlgalka ee diiwaangelinta codbixiyayaasha 28kii bishii December aan bilownay ayaa caawa oo ay taariikhdu tahay 26kii January inoo soo dhamaaday. halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan ciidamada qaranka ee xeebaha galbeed iyo ciidanka booliiska ee taliyayaashooda qaybaha Awdal iyo Shalel iyo barasaabada gobolada Shalel iyo Awdal oo si hagar la'aan noola shaqeeyay. dhammaan waxaan kale oo mahadnaqayaa ardaydii ka qayb gashay iyo shaqaalaha howlwadeenada ee degmooyinka gobolka Awdal dhammaantood ka qayb galay ee u dhabar adeegay hawsha inta leegu dhabar adeegay. waxaan kale oo mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Awdal shacabweynaha Awdal oo si fiican uga qayb qaatay oo ugu soo baxay diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka socday 22 goobood iyo goobihii kale loo sii kala guuray. gabagabadii gunaanadkii waxa halkaasi ka hadlay afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdicasiis Xirsi Warsame. si nabadgelyo ah noogu soo gabagaboobay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ka socotay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolkan aan hadda joognay Awdal. 22 goobood ayay subaxdii 28kii bishii December 2022 ay ka bilaabantay. macaawana oo alxamdulillah nabadgelyo ku soo wada hoyday. dhalinyaradii ka soo shaqeynaysay ee ka kala socotay jaamacadda Amuud iyo dhalinyaradii kale jaamacadaha kale ka socday ee dalka ee barnaamijka ka shaqeeyay iyo dhalinyaradii kale shaqaalaha komishanka ahayd. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxay runtii sameeyeen arrin wadaniyad leh oo runtii aad u cajiib ah iyagoo qaarkood bartii iskuuladii ay ku wadeen shaqada isla habeenkiina seexanayay muddada inta la ka soo toosayay. waxaan xasuustaa maalin aan tiim ugu tagnay qoljeed oo iyagoo qolkana ka dhigtay kitchadii wax ku karsanayeen galaaska xaggana seexanayay kana dadweynuhu ugu shaqeynayay ayaan halka ugu tagnay. waxaad halka ka dareemaysaa dhalinyaradaasi qaabka ay u diyaarsanaayeen u dadaalayeen. aad iyo aad bay runtii dhammaantood u mahadsan yihiin. waxa kale runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada ammaanka oo si aad iyo aad u fiican noola shaqeeyay. Suxufi Cishqi MMTV magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal.